wasiirkii wasaaradda warshadaha Soomaaliland Abiib Diiriye Nuur Abiib Timacad ayaa maanta duhurkii ku dhawaaqay inuu iska casilay jagadii wasiirnimo ee uu ka hayay xukuumadda madaxweyne Zilayo isagoo ku sababeeyay in ay jiraan dad ka hooseeya madaxweyne Zilayo oo ka dambeeyay isku shaandhayntii lagu kala bedelay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda halka qaar kalena laga eriyay jagadii ay ka hayeen xukuumadda Soomaaliland. Abiib Diiriye Nuur wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri waxaan iska casilay xilkii aan qarankan u hayay ee uu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Jiraayo kadib markii aan arkay in wax si yihiin oo wax khaldan yihiin ayaan go'aankan gaadhay. maama Carbeed waxay tiraa haddii kuugtu badato maraqa ayaa xamaada meesha kuugtii waa ku badan oo iska horiye daba ka wareeg inay ku badan tahay waxaad ku garanaysaa wax walo ka soo dhacaaba maqluub ka soo baxaaba xaga yaani waa gura oo maqluub ku shaqeynaya oo ujeedo macnuhu ma aha yaani si toosa maaha waxaan arkaysaa talooyin wada qaldan oo wada muxuu ah markaad ka soo qaaday marshafligi ugu dambeeyay طبعا واضح كيسار شفل يعني wax laga fiirsaday ma ahayn wax cid weyn oo mudakaro yani dalkan iyo dadkan u turaysa arinay keenan ma ahayn gebigiisa wada maqluub aha dadka la keenay kuwa ka tagay meesha yani waa darkaysa in aanu muxuu ahaa cilmi iyo aqli midna aan lagu sameyn kadib markii aan arkay waxyaabaha noocaasa oo wax walba upside down u shaqeynayo baan go'aan kan gaaray inaan muxuu anigu iskaga nasto. dhanka kale Abiib Diiriye Nuur Abiib Timacad oo wax laga weydiiyay hadal hore uga soo yeedhay oo ahaa inuu ku qanacsan yahay xil kasta oo madaxweynuhu u magacaabo waxa iska bedelay hadalkaasi ayaa waxa uu wasiirku ku jawaabay sida tan wallahi doorta way jirtaa ha saasan qaba inay ka soo baxday inaan oday ka soo bixin man qaba dad aan waayarag haynoon يعني maxaan ku raayay xogogaal ahayno aan dalkan iyo dadkan midna aan ka warhayn wax la soo maray iyo wax jira iyo xaq ugu socdo midna aan ka warhayn baa waxaan keenay wasabay si kastaba ha ahaatee iscasilaadani uu maanta ku dhawaaqay wasiirkii wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaan ahayn iscasilaadii koobaad ee ka dhalatay kadib isku shaandhayntii lagu sameeyay golaha wasiirada taasoo ay ka horeeyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicaziis Maxamed Samaale iyo la taliyihii madaxweynaha ee beelaha laga tirada badan yahay taasina ay u muuqato in aan lagu qancin isku shaandhayntii uu madaxweynuhu ku sameeyay golihiisa wasiirada taasi oo wasiiradan hadda iscasilay ay ka dhawaajiyeen in ay isku shaandhayntaasi ka dambeeyeen qaar ka mid ah dadka sida aadka ah looga ixtiraamo qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale taasi oo loo aaneynayo sababaha loo taaban waayay xilalkooda waa Maxamed Ismaaciil Salaan Somaliland Space Channel Hargeysa.